madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo magaalada baydhabo ee gobolka baayko ku qayb galay munaasabad la ku xusay guuli adwa oo ku wareegatay 29 sano isku caabiyowkii gumaysiga iyo guuli midnimada Afrika. munaasabadaas oo kaleed ku qayb galay safiir ku-xigeenka dowladda Itoobiya fadhi Soomaaliya, golayaalka shalduwan dowladda koonfur galbeed iyo saraakiil ku dareertay ciidanka Itoobiya. munaasabadan tii socotay meelan ku hadlay guula adwa oo dhiirigeliyaas halgankii xornimada Afrika mayna cadeeytay inta midnimada iyo go'aanka adag ay horseedo korto xorriyad. madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo dulsurumi midnimada iyo guuli wadajirka hayti ee dowladda Itoobiya iyo ka wajahday sidii ay isku diiday lahayd gumaysiga. ayna madaxweyne laftigareen uusan ka hambaliyay shacabka iyo dowladda Itoobiya maalintan taariikhiga ee sugan ku mahadnaqay dowladda Itoobiya gaar ahaan ciidamadii sida naftiyo iyo onka horan sidii amniga deegaanada koonfur galbeed iyo xaqiijin lahaayeen. guusha adwa waxay dhiirigelin weyn u tahay dadka Afrika oo dhan meel walba ay joogaan iyo gaar ahaan dadka Itoobiya. halganka markuu guuleysto wuxuu dhalaa midnimo, wuxuu dhalaa dowladnimo, wuxuu dhalaa horumar, wuxuu dhalaa dhaqaalo, wuxuu dhalaa aqoon, wuxuu dhalaa is-aamin iyo wadaniyad iyo laxjeclo dalka laga leeyahay yuu dhalaa. runtii waxaan aaminsanahay halgankii asaga ahaa oo ay hormuud ku ahaayeen boqor Miliqii labaad iyo boqoradiisii Tuuti inay dowladda Itoobiya iyo shacabka Itoobiyaba ay ku gaareen gobonnimo iyo xornimo iyo dowladnimo istaagto ay maantana ku taagan yihiin. wixii ka dambeeyayna ay adduunka iyo Afrikaba ay ku matalayeen ayagoo xor ah, dowladna ah, gumaysigana eryadiisa iska qaaday. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga hambalyeelaynaa taariikhdaas quruxda badan iyo halgankaas qiimaha badan oo ay dowladda shacabka Itoobiya ay soo galeen. Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo walaal ah, xiriir dheer oo taariikheed na uu ka dhaxeeyo, mid dhaqan iyo mid walaaltinimo iyo mid darisnimo intaba uu ka dhaxeeyo. waxaan mahadnaq inta uga jeedinaynaa ciidamada Itoobiya kaalinta ay ka qaateen xasiloonida iyo nabadda iyo sugidda amniga ee dowladda koonfur galbeed inta qaybooda ay ka joogaan yaan uga mahad celinaynaa. sidaasoo kale waxaan uga mahad celinaynaa dowladda Itoobiya xasiloonida iyo nabadda iyo iskaashiga amniga ay kaga qayb qaateen guud ahaan gobolka. waxaan dhiirigelinaynaa oon bogaadinaynaa oon hambalyo u jeedinaynaa shacabka Itoobiya, dhalinyarada, mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda Itoobiya. taariikhdan xusidda mudan ee guusha iyo hogaaminta adwo horseedka u ahayd yaan dhiirigelinaynaa. midnimada waa furaha xorriyadda. haddii aan midnimo la helin oo dadka deegaanka iyo shacabka iyo ummadda dhan aysan midoobin, xornimo ma imaanayso. sidaas darteed waxaan kaloo dhiirigelinaynaa midnimada iyo wadajirka iyo wadaniyadda iyo daljacaylka ay qabaan dadka Itoobiya ayna ka dhaxleen taariikhdii adwa. dalalka Afrika oo dhan waa inay iskaashadaan, iswalaashadaan, wax walba oo khayraad ah iyo wax walba oo walaaltinimo ah iyo wax walba oo amni ahna ay ka wada shaqeeyaan, una istaagaan siday Afrika nabad iyo xasilooni iyo horumar dhaqaalo ay ka heli lahayd.
waxaan ballan qaadaynaa haddaan nahay dowladda koonfur galbeed xiriir ka wanaagsan oon la leenahay dowladda Itoobiya oona hormuud ay nooga tahay dowladda Soomaaliya oo aan qaybta ka nahay inaan dhiirigelino adkayno horeyna u wadno hadduu ilaahay yidhaaho horumar fiicanna aan ka gaarno gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa ciidamada Itoobiya oo nala joogo koonfur galbeed sector 3 uu ugu horeeyo Generaal Basafaad oo ah taliyaha sectorka iyo taliye ku-xigeenkiisa Sabuke iyo saraakiisha iyo ciidamada nala shaqeynaya habeenii maalin una taagnaa nagalana shaqeynayay amniga deegaanadan koonfur galbeed nagala shaqeynayay xasiloonida guud nagala shaqeynayay dib u dhiska ciidamada stateka booliiska gaarka ee koonfur galbeed nagala shaqeynayay inay ciidamo qiimo badan oo difaaco dalka oo la dagaalamo argagixisada caalamiga ah loo tababarayay oo wax walba oo ku saabsan amniga iyo ka warqabka deegaanada iyo u xogta bulshadaba intaba nagala shaqeynayay mahad gaar ahaan u celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin hambalyo sanado badan iyo guul baan idiin rajaynayaa. Faysal Maxamed Isaaq, TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed, Baydhabo.